السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي الكسود وهذا مركله iyo channelkan YouTube-ka FPL Somali waanigu ah Daar Cabdulla Cali oo idin la socodsiinaya xubin kale oo aan ku falanqeynayno Fantasy Premier League 2021-2022 waxa horteena ah ciyaareedka sagaalaad oo la ciyaari doono kulamo xiiso badan oo maamulayaal badan ay ka sugayaan in ay dhibco ka keenaan mowduuca aan kaga hadli doono waa kulamadaas la ciyaari doono iyo kulamada ugu xiisaha badan ee maamulayaasha ay fiirin doonaan ciyaaryahanada farqiga ah doorashada kabtanka ayaan ugu dambaysiinayna saaxiibayaal waxay xasuusinayaan inaad soo biirtaan channelkeena YouTube-ka FPL Somali sidoo kale notification-ka aad furtaan dhinacyada Facebook, Instagram iyo Twitter-ka aad soo biirtaan sidoo kale WhatsApp group ayaa jiro oo aan sameynay asna ku soo biira aad iyo mahadsantiin haddii aan marka u gudubno mowduuca toddobaadka iyo falanqeynta isbuuc ciyaareedka sagaalaad ee horteena ah kulamada la ciyaari doono haddii aan si guud u dulmarno kulamada la ciyaari doono waxa uu soo horeeya kulanka maalinta Jimcada la ciyaari doono oo ay iskaga hor imaanayaan kooxaha Arsenal iyo Aston Villa Sabtida oo taariikhdu ay tahay 23 waxa wada ciyaari doona Chelsea iyo Norwich Crystal Palace iyo Newcastle Everton oo martigelinaysa Watford Leeds United iyo Wolves oo sarki doona Southampton iyo Burnley oo sarki doona Brighton iyo Manchester City oo sarki doona maalinta Axadana waxa wada ciyaari doona Brentford iyo Leicester West Ham United iyo Tottenham iyo kulanka toddobaadkan ugu weyn oo ay isku arki doonaan labada koox ee waaweyn ee kala ah Manchester United iyo Liverpool oo waxa lagu ciyaari doonaa gegida Old Trafford saaxiibayaal haddii aan si guud u fiirino kulamada maamulayaasha ay si gaar u fiirin karaan oo ay dhibco gaar ay fiirin karaan waxa ugu soo horeeya kulanka toddobaadka ugu soo horeeya oo ay wada ciyaari doonaan kooxaha Arsenal iyo Aston Villa kulankani waxa uu u yahay hordhac toddobaadka sagaalaad waxaana assetska dhinaca Arsenal markaan fiirino waxa dhaawac uu la xaqiijiyay inuu dhaawacay kulankan oo safan doonin ciyaaryahanka haysashada marka la dhaho kooxda Arsenal ugu badan Bukayo Saka oo dhaawacmay kulankii kooxda Arsenal ay iska hor imaadeen Crystal Palace toddobaadkii la soo dhaafay kulankaas oo Arsenal 2-2 ay la gashay waxa gool soo dhaliyay ciyaaryahan Aubameyang oo la filayo in maamulayaasha ay bedel uga dhigtaan maqnaanshaha dhaawaca Lukaku kaasoo ay maamulayaal badan ay ka fikirayaan inay ku bedeshaan weeraryahanada hadda ugu xiisaha badan dhankaasi markaa fiirino kooxda Aston Villa ilaa hadda weeraryahanadii Watkins iyo Ings labadaasi oo ahaa maamulayaasha inta badan ay markii xilli ciyaareedku u bilaabanay xataa ay aadku u iibsanayeen wali qaab ciyaareedkooda aad iyo aad uma shidna marka fiirisid laakiin xagga daafacyada ay aad uga adag yihiin oo maamulayaasha ka soo qaadan karaan Arsenal hadii aan ku laabano ciyaaryahanka qadka dhexe ee kooxda Arsenal Kieran Smith Rowe waxa uu ka mid yahay ciyaaryahanada farqiga ah ee maamulayaasha sidoo kale ay soo qaadan karaan kulanka kale ee ku xiga maalinta Sabtida la ciyaari doono maamulayaasha sida gaarka dhibcaha ugu filanayaan waa kulanka ay isku arki doonaan kooxda Chelsea iyo Norwich kulankaasi waxa horaantiisii inta kulamadii hadda Champions League la soo ciyaaray kadib waxa la xaqiijiyay inuu dhaawac yahay Lukaku iyo sidoo kale Timo Werner taasi waxa ay fursad siin doontaa ciyaaryahanada kale ay ka mid ka yihiin Kai Havertz oo loo badinayo inuu lambar 9ka dadban uu ka soo ciyaari doono kulankaasi waxa ay la ciyaarayaan kooxda Norwich oo ilaa hadda guul aan ka gaarin ilaa hadda Premier League markaa fiirisay oo dhibcaheeda ku heshay barbadhac oo kaliya inta kale laga badinayo xagga gool dhalinta iyo fursad abuurista iyo goolasha ay ka dhalanayaan aad ay u badan yihiin markii loo fiiriyo Chelsea oo ayadana ah xagga daafacana aad uga dhisan oo daafacyadeeda ay yihiin dhinaca goolasha badan ay ka hesho marka dhankaasi kooxda Chelsea waxa ay u muuqataa in kulankani ay dhibco fiican ama maamulayaasha ee dhibco fiican kaga tashan doonaan oo sidoo kale waxa la filayaa markii loo fiiriyo dhinaca يعني suurtagalnimada in Chelsea ay badin karto aad ay u badan tahay sidoo kale in shabaqeeda ay laashan doontana aad ay u badan tahay marka maamulayaasha si gaar ah ayay u fiirsan karaan kulankaasi kulanka kale waa kulanka kooxda Everton iyo Watford ay isku arki doonaan kulankaasi oo ciyaaryahanno farqi ah oo maalmihii la soo dhaafay maamulayaasha aad uga faa'iideeyeen ay iskaga hor imaan doonaan dhinaca Everton markaa fiirisid ciyaaryahan Townsend iyo Gray waxay ka mid ahaan ciyaaryahanadii hadda maamulayaasha toddobaadkii la soo dhaafay ee dhibcaha uga xisaabtamayeen oo ay aadka
ay uga tashanayeen. Marka inkastoo kooxdan Everton kulankii hadda ugu dambeeyay ee gurigeeda ay ku ciyaartay kooxda West Ham ay ka badisay, haddana waxay isku dayi doontaa inay dhibco ay keento kooxda Watford dhankeeda. Liverpool ayaa ka soo badisay oo dhibco ama goolal badan looga soo badiyay. Kulamo adag ay wajihi doontaa, laakiin ciyaaryahankeedii maamulayaasha aad iyo aad uga tashanayaan Sarr oo dhibciisa xataa qiimihiisa xataa uu sare u kacayo. Weli waxaa suurtagala in uu ka helo meeshan dhibco. Saaxiibadiisa weeraryahanada ayagana sidoo kale weli farqi waaye, inkastoo ay suurtagalnimada ay aad u sii yartay maadaama kulamada hadda ay kooxda Watford ay ciyaari doonto inta soo socoto ay aad iyo aad u adag yihiin. laakiin haddii aad weli haysato fursad waa siin kartaa, gaar ahaan Sarr waa nin marka la dhaho dardarta gool dhalinta aad iyo aad ugu kulul. dhinaca kale waxaa ayadana xusid mudan kulanka Leeds United iyo Wolves, labadan kooxood oo markaa fiirisid sida hadda ay ku soo badisay kooxdan Wolves iyo kooxda Leeds oo ayadana laga soo badiyay. waa marka loo fiiriyo ciyaaryahanada hadda usoo laabanaya kooxda Leeds, waxa ay fursad siin doontaa in gaar ahaan Rafinha oo maamulayaasha in badan oo kamid ah haysashada marka la dhaho 20% ayuu gaaraya haysashadiisa. marka door fiican waaye haddii aad weli haysatay oo aadan iska iibinin, maadaama kulankaada lasoo dhaafay uu uga maqnaa arrimaha, maadaama kulamadii saaxiibtinimo uu soo ciyaaray iyo ama isreebkii koobka adduunka oo ciyaaryahanada ka soo ciyaaray South America oo dhan ay baaqdeen kulamadii hadda lasoo dhaafay. kulanka kale maamulayaasha ay sida gaarka u fiirin karaanna waa kulan aad iyo aad markii loo fiiriyo xifaaltanka hadda ay la soo baxday kooxda Brentford oo martigelinaysa kooxda Manchester City waan ognahay gool dhalinteeda iyo weerarkeeda iyo dhankaasi oo dhan waa ay ka dhisneed waayadan dambe, laakiin kooxda Brentford oo uu hogaaminayo Graham Potter waxaad moodaa qaab ciyaareedkeeda, dhismaheeda iyo sida ay isku haystaan, jaanisyada u abuurayaan, banooniga u dhisayaan, banan haysashada, intaas oo dhan waa ay ka dhisan yihiin oo waxaad moodaa in koox meeshaasi ay ka soo socoto. Manchester City waxa ay ku jirtaa waaye kale oo aad iyo aad u qurux badan oo tababare Pep Guardiola waxa isku day doonaa in uu sii wato wadada guusha ee uu ku soo laabtay. kulanka hadda ugu dambeeyayna 5-1 ayuu ku soo badiyay dhinaca Champions League. kulanka ka horeeyana 2-0 ayuu Burnley kaga soo badiyay. marka ciyaaryahanada kooxda Manchester City sida gaarka ah hadda sida gaarka mar walba dhinaca Champions League aan dhahay dhinaca Premier League fursadooda hadda ay tahay mid aan lama taabtaanka ah, sida Grealish oo kale, weeraryahanka Gabriel Jesus oo kale, dhinacyadaas Kevin De Bruyne oo kale, waxaa suuragal ah in meeshan ay dhibco ka keenaan. xaggan daafacyada ayaa ahaa kuwa ugu dhibcaha markaa fiirisid kooxda Brentford, sida Dunk, Duffy oo qiimihiisa hadda 4.4 buu u gaaray, iyo weeraryahanka Mobile oo asna farqi ah, daafaca bidix oo ciyaara asna la dhaho Karila. ilaa dhankaas waa ay ka dhisan yihiin oo ciyaaryahanka Trossard sidoo kale waxa uu ka mid yahay ciyaaryahanka goolka ka dhaliyay kulankii ugu dambeeyay ee wada ciyaaraan oo kooxdan Brentford ay Manchester City ka badisay. marka kulankaasi waxa uu noqon karaa kulan xiiso badan oo maamulayaasha ay il gaar ah ku eegi doonaan. dhinaca maalinta Axadda ah kulamada la ciyaari doono, kulanka ugu xiisaha badan toddobaadkana ugu weyn intaan la gaarin ka hor waxaa wada ciyaari doona kooxaha Brentford iyo Leicester City oo Manchester United 4-1 kaga soo badisay ciyaareedkii la soo dhaafay ayaa u martinaysa kooxda Brentford oo aad iyo aad isku haysata marka loo fiiriyo, inkastoo hadda 1-0 looga soo badiyay oo kooxaha waaweyn ay aad moodo inay taaka u dhigayso. marka loo fiiriyo ciyaaryahanada hadda uu ciyaaraya, ciyaaryahanka hadda doorka ugu fiican oo hadda farqiga ah ee maamulayaasha inta badan hadda toddobaadkan aadka loo iibsanayay waa Mbeumo, ciyaaryahanka fursad abuuristiisa, weerarkiisa, isfahanka kala dhexeeya Ivan Toney ninka weerarka uga ciyaara, ilaa isku xirkooda qaabka daafacashadooda aad ay u fiican tahay. tababare xamaasadaysan, garoonkooda marka ku sii ciyaarayaanna aad iyo aad ay ugu duwan tahay kuwa kale. kooxda Leicester shaqa u taala. Leicester ayaguna waxay 4 ku soo badiyeen 4 goolal 4 waxaa soo dhaliyay Daka, ciyaaryahanka dhawaan ku soo biiray. ciyaaryahankaasi waxaa sidoo kale ka horeeya laakiin oo Iheanacho oo ilaa Vardy oo asna qaab ciyaareed fiican ku jira oo maamulayaasha ay ka fikirayaan inay ku bedeshaan Lukaku, maamulayaasha hore u sii haystay. marka kulankaasina waa kulan kale oo xiiso badan. kulanka kale ee maalinta Axadda la ciyaari doono waa West Ham iyo Tottenham.
kulankani waxaa wada ciyaari doona laba kooxood oo London ka wada dhisan. Kooxda West Ham waxay ku jirtaa qaab ciyaareed fiican, xagga Yurub xitaa qaab ciyaareedkooda aad ay u wanaagsan yahay. ilaa kooxda markaa fiirisid ciyaaryahanka Antonio uu ahaaba ciyaaryahanka ugu dhibaha badan maalmo ay soo haystay inkastoo hadda laga hormaray, laakiin weli waxaad moodaa in fursad la siin karo. qiimihiisa sare ayuu sii kacayaan 8 ayuu sii marayaa, laakiin dhinaca Tottenham markaan fiirino wadada guusha ay markale heshay oo ciyaaryahankeeda Son ayaa ah doorka ugu fiican ee markaad fiirisid saameynta uu leeyahay. sidoo kale Harry Kane wuxuu helay tubtii guusha gool ayaa u dhaliyay kulankii hadda la soo dhaafay. marka taasi waxay ka dhigan tahay in mar kale Harry Kane uu saameyn ku yeelan karo. Harry Kane haddii aad xasuustaan kulamadii hadda ugu dambeeyay ee kooxdan West Ham ku hor imaaday ilaa 4 ka mid ah wuxuu la soo laabtay dhibco 10 ka badan. marka taasi waxay fursad siinaysaa in Harry Kane uu Janis la siin karo, maamulayaashana ay ka fikiri karaan inay qaataan. kulanka ugu dambeeya maalinta la ciyaari doono Axadda waa kulanka isku arki doonaan kooxaha Manchester United iyo Liverpool. Manchester United iyadoo aan ognahay Premier League sida ay ku bilowday iyo hadda sida ay tahay, kulanka hadda ugu dambeeyay Premier League 4-1 ayaa loogu soo badiyay. kulankii Champions League-na 3-2 ayay ku soo badisay oo ugu dambeeyay oo 2 gool ayaa laga hormaray, 3 gool oo degdeg ah oo dambe ay ka keeneen oo qaybta dambe ciyaarta ay keensadeen. marka fiirisid haddaan isbarbar ku sameeyno dhinaca Liverpool 5-0 ay ku soo badisay oo Watford ay uga soo badisay. Atletico ay gurigooda 3-2 uga soo badiyeen. ciyaaryahan Mohamed Salah wuxuu ku jiraa qaab ciyaareed fiican oo gool dhalintiisa iyo goolasha isku eg ee quruxda badan ee uu dhalanayo ee xiriirka u dhalanayo waxaad moodaa inay aad iyo aad u kala fog yihiin. marka taasi iyadoo ay jirto markii loo fiiriyo dhinaca fantasiga, ciyaaryahan Cristiano Ronaldo maamulayaasha aad ay isaga iibinayeen oo qaab ciyaareedkiisa aynan u bogin oo maadaama qiimo badanna uu ku fadhiyo ilaa 12.6 uu ku fadhiyo. xaggan Mohamed Salahna uu yahay ninka hadda isku qiimaha ay yihiin aadkana qaab ciyaareedka fiican ugu jira oo loo badinayo in sidoo kale kulankan uu gool ama shabaqiisa uu soo taaban doono. marka kulankan xiisahaas ayuu leeyahay oo maamulayaasha waxay ka fikirayaan dhinacyada, waliba dhinaca Liverpool markaa fiirisid oo dhinaca daafacashada weeraryahanada ilaa iyo xaggaas isku xirkooda aad iyo aad u dhisan. ciyaaryahan Firmino oo ku soo laabtay ilaa iyo hadda ku soo laabtay shaxda, taasina waxay siisan kartaa isfahamkii Mane iyo Salah iyo Firmino ay soo celin kartaa, taasoo ayadana isbedel ku samayn kartaa sida uu ekaan doono kulanka ee labadan kooxood isku arki doonaan. haddii aan fiirino markaa toddobaadkani iyo ciyaaryahanka Lukaku maadaama uu maqan yahay, Timo Werner sidoo kale uu maqan yahay, maamulayaasha waxay ka fikirayaan inay ku bedeshaan 3 ciyaaryahan waa Aubameyang, Kane iyo Vardy ayaa ah ciyaaryahanka hadda ugu goolasha badan markii loo fiiriyo dhinaca weerarka. waxaa goolasha uu kala siman yahay Mohamed Salah, laakiin weeraryahanada hadda qiimahoodu uu sare u sii kacayo ayuu ku jiraa oo bedelkana noqon kara. Harry Kane asna waa markii loo fiiriyo kooxda ku hor imaanaya West Ham oo goolal uu ka soo dhalin jiray, sidoo kale waxa uu noqon karaa mid ay maamulayaasha ku bedelan karaan. xagga Aubameyang kulamadii hadda uu ku soo ciyaaray guriga lagu soo ciyaaray gool ayuu ka dhalinayay, gaar ahaan kooxda Aston Villa kulankii 2020 gool ayuu ka soo dhaliyay. marka doorarkaas ayaa la fiirin karaa oo laguna bedelan karaa. xagga doorashada kabtanka markaa fiirino toddobaadkan waxaa ugu caansan oo kabtanka laga dhigan karaa waa ciyaaryahanka qaab ciyaareedka u fiican ku jira waa Mohamed Salah, inkastoo uu ka hor imaanayo kooxda Manchester United, haddana door ahaan waa uu mudan yahay in mar kale lagu aamino kabtanka. ciyaaryahanka kale waa De Bruyne waxa uu ka hor imaanaya kooxda Brighton, sidaas darteed waxaa suuragal ah in uu meeshaas dhibco ka keeno. ciyaaryahanka kalena waa Harry Kane asna wuxuu ka hor imaanaya kooxda West Ham oo uu muddadii ugu dambeysay oo goolal uu ka soo dhalin jiray, sidoo kalena soo laabashadiisii inuu shabaq soo taabto fursad ay siisanaysaa. Son oo asna ilaa hadda qaab ciyaareedkiisu uu wanaagsan yahay, mar walbana saaxiibkiis Harry Kane caawiya, asna waxa uu ka mid yahay doorarka kabtanka laga dhigan karo. kabtanada farqiga ah ee la soo qaadan karo waxaa ka mid ah Kai Havertz oo lambar 9 dadban uga ciyaari doona kooxda Chelsea oo ka hor imaanaysa kooxda Norwich City.
oo dabcan ciyaaryahankan hore ayuu loogu tijaabiyey inuu ka ciyaaro lambarsayaalka dadban taasoo yani siinaysa in uu dhibco uu halkaas ka keeno markaa fiirino farqiyada ciyaaryahanada la qaadan karo Callum Wilson wuxuu ka mid yahay ciyaaryahanada farqiga ah oo Crystal Palace ayuu ka hor imaanaya saaxiibayaal intaas ayaan kusoo goobayaa waxaan idinku yeerayaa inaad mar kale aad kusoo biirtaan oo aad hubisaan in notificationka aad furateen dhinacyada Facebooka Instagramka iyo Twitterkana dhankaas nooga soo biir sidoo kale group WhatsApp ayaa jiro oo aan furnay kaasna nooga soo biir aad iyo mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi